wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Engineer Ciise Axmed Yuusuf Xawar oo weheliyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Somaliland Sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa maanta dalka ku soo dhaweeyay xogayaha difaaca dawladda Ingiriiska Gavin Williamson oo ka soo degay diyaaradaha cigaal war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Somaliland ayaa lagu sheegay inay dawladda Somaliland soo dhaweynayso xogayaha difaaca dawladda Ingiriiska oo ay si weyn wada shaqayn u leeyihiin kaasi oo ay tilmaantay inay Somaliland daneynayso cid kasta oo wada shaqayn la rabta waxaana war saxaafadeedkaasi qayb ka mid ah u dhignay sidan waxaanu dalka ku soo dhaweynay xogayaha difaaca dawladda Ingiriiska Gavin Williamson oo aan wada shaqayn leenahay ka wasaaradahan waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo wada shaqayn diyaar u ah Somaliland higsigeedu waa qaran horumara oo la talaabsada wadamada caalamka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Somaliland oo ku saxeexan yahay afayeenka wasaaraddaasi maatika xogayaha difaaca dawladda Ingiriiska ayaa ku soo beegmaysa xilli xasaasi ah oo mandaqada gobolka Geeska Afrika ay ka jiraan iskaashiyo kala duwan waxaana xusid gaar ah mudan dawladda Ingiriisku ay si weyn uga soo horjeeday qarar ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo dalka looga eriyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya toddobaadkii tagay ilaa imika dawladda Ingiriiska iyo dawladda Somaliland midna war rasmi ah kama soo saarin ujeedada dhabta ah ee kulankani daarana marka laga yimaado warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland tan iyo intii Somaliland la aasaasay waa markii uu horeysay taariikhda oo xogayaha difaaca dawladda Ingiriiska ku socda u yimaado Somaliland Maxamed Jaamac Umal wararka warbaahinta SBC Hargeysa